kulanti wanaagsan daawadayaal Ramadaan Mubaarak kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena qubanaha maanta qodobada aad ku daawan doontaanna waxaa kamid ah maxkamad ku taala magaalada Garowe oo dil ku xukuntay qaar kamid ah raggii loo haystay kiiskii kufsiga iyo dilka ahaa ee loo geystay Caaisha Ilyas Aadan oo ahayd gabar 12 sano jir ah hay'adda qaxootiga adduunka ee UNHCR oo sheegtay in sanadkii la soo dhaafay tirada dadka barakacayaasha ah ee dunida ay korortay oo ay gaartay in ka badan 41 milyan oo qof wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha ayaad sidoo kale ku daawan doontaan barnaamijkeena iyo waliba qodobo kale aan ku bilowna ee maxkamad ku taala magaalada Garowe ayaa maanta dil toogasho ah ku xukuntay 3 nin oo laba kamid ah ay walaalayihiin oo loo haysto in ay ka dambeeyaan dilka gabadhii 12 sano jirka ahayd Caaisha Ilyas Aadan oo meedkeeda bishii February ee sanadkan laga helay magaalada Gaalkacyo warbixintan waxaa Garowe ka soo diray wariyaheena Nuux Muuse Barjaab dhageysiga maxkamadda oo maanta ahayd dhageysigii saddexaad eedeyn iyo ka difaacid kadib ayuu gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad Cabdinuur Jaamac Xuseen ku xukumay dil 3 dhalinyaro ah oo ku eedeysnaa kufsigii iyo dilkii Allah u naxariistay Caaisha Ilyas Aadan halka 7 kale ay maxkamadda xoriyadoodii u celisay kadib markii la dhaariyay maxkamadduna ay dhaarisay maxkamaddu waxay amraysaa lambarka 4 ilaa lambarka 10 xorriyadooda in loo sii daayo sida ugu dhaqsaha badan saddexda kale oo uu ku soo gabagabeeyey maadaama ay cadayntaasu muujinayso inay nimankaasu gabadha nimankii kufsaday dilay qafaashay dhibtaa u geystay ay yihiin markaanu qoraallada akhrinayna ay saa muujinayso inay yihiin saddexdaasu nimanka marna aan laga saari karin ee sameeyey dhibtaa ee Caasho ku sameeyey inay yihiin maada cidiyihii iyo taabashadii waxa la yiraahdo dhacaankii laga helay xukunkii maxkamaddu waxay ku xukuntay saddexdaad eedaysane oo ah Cabdifataax Cabdiraxmaan Warsame iyo Cabdishakuur Maxamed Degel iyo Cabdisalaam Cabdiraxmaan Warsame dil toogasho oo dawladdu ay ku sameynayso dilkaas ay u xil saarantahay iyo inay fuliso wabillahi tawfiiq fariist saddexda lagu xukumay dilka oo laba kamid ah ay yihiin walaalo wada dhashay ayaa la sheegay inay racfaan u furan tahay muddo bil gudaheeda gudoomiyaha maxkamadda Cabdinuur ayaa dadweynaha u sharaxay dhinacyada ay u cuskadeen xukunka dacwadda oo ku qotomay shareecada dhageysiga maxkamadda oo loo ogolaaday dadweynaha inay ka qayb galaan sidoo kalena ahayd mid ay toos u tabanayaan warbaahinta maxalliga ah ayaa go'aanka ay ka gaartay dacwaddan waxa ay ahayd mid la wada sugayay maalmihii ugu dambeeyay xilli waliba falalka kufsiga uu aad ugu soo badanayo deegaanada Puntland Nuux Muuse Barjaab VOA Garowe hay'adda qaramada midoobay ugu qaabilsan qaxootiga ee loo soo gaabiyo UNHCR ayaa sheegtay in tirada dadka ku barakacay dalalkooda sanadkii la soo dhaafay ay korortay isla markaana ay gaartay in ka badan 41 milyan oo ruux UNHCR ayaa sheegtay in 3 markii loo qaybiyo 2 ay dadkaasi ku barakaceen 10 wadan oo ay ku jirto Soomaaliya tirada dadka ku barakacay gudaha dalalkooda ayaa hay'addu ay sheegtay in ay si weyn uga badan tahay kuwa qaxootiga dalalka dibadda ku noqday oo iyaga tiradooda imika ay tahay 25 milyan iyo bar halka in ka badan 3 milyan oo qof ay iyaguna magangali doon yihiin UNHCR ayaa sheegtay in dadka barakacayaasha ah aysan sida dadka qaxootiga oo kale aysan haysan ilaalo iyo daryeel isla markaana ay ku adag tahay inay dalalkooda ku helaan taageero iyo daryeel caafimaad dhinaca kalena magaalada Nairobi urur goboleedka IGAD iyo dalalka daneeya arrimaha Afrika ayaa ku dadaalaya sidii ay daryeel u heli lahaayeen qaxootiga iyo barakacayaasha ku nool dalalka dhaca bariga Afrika warbixintan waxaa Nairobi ka soo diray Khadar Maxamuud Xareed dagaalo daba dheeraaday iyo abaaro muddo badan ku soo noqnoqday gobolka oo isbiirsaday ayaa inta badan
dadka ku nool bariga iyo geeska Afrika ku qasba inay ka qaxaan deegaanadooda amaba ay ku barakacaan gudaha wadamadooda waxaana jira dhibaatooyin kala duwan oo marka ay dadku qaxaan amaba barakac noqdaan soo wajaha dhibaatooyinkaasi waxaa kamid ah inaysan haysanin adeegyada aasaasiga u ah nolosha sida caafimaadka waxbarashada iyo caqabado kala duwan oo ay kala kulmaan dhanka safarka dawladaha geeska Afrika oo arrimahan ka duulaya ayaa marar badan shirar xal loogu raadinayo arrimahaasi yeeshay hase yeeshee waxa wali muuqata in wadamadu aysan wali xal waara arrintaasi u helin madaxda urur goboleedka IGAD wadamada daneeya arrimaha Afrika iyo aqoon-yahano cilmi baaris ka sameeyay arrimaha qaxootiga ayaa toddobaadkan isugu yimid magaalada Nairobi kuwaasoo aad uga dooday waxyaabaha sababa in dadku ay qaxaan iyo sidoo kale dadka ku barakacay gudaha waxaana shirkaasi laga soo saaray qodobo muhiim u ah sidii xal loogu heli lahaa arrintan dad baa maartay naftooda cabsan haya dad baa maartay amnigooda cabsan haya markaas la ajligeed waxaan doonaynaa gobol ahaan haday una nahay geeska Afrika in dadkan aad u socda xaqiiqdii waxaan ku jirnaa dalalka u badan maartay adduunweynaha socodka lagu tilmaamo marka waxay u baahan yihiin maartay maarin in laga shaqeeyo in maartay la habeeyo in caafimaadkooda la eego in maartay cilmigoodii carruurtooda cilmigiisii la eego urur goboleedka IGAD ayaa isku dayaya inuu xal kama dambaysa u helo dhibaatooyinka inta badan ka dhasha dadka qaxootiga ee ku nool bariga iyo geeska Afrika wadanka Soomaaliya ayaa kamid ah wadamada ay sida xoogan u saameeyeen arrimaha qaxootiga iyo dadka sidoo kale ku barakacay gudaha waxaana jira dad lagu qiyaasay ku dhawaad 300 oo kun oo qaxooti Soomaaliyeed oo ku nool xeryaha Dadaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya waxa weeyaan isu gudubta wadamadan dadka socdaa ee wadamadan dariska ama wadamada adduunka u socdaa Soomaalida u badan marka wadamadan dariska la barbar dhigo marka aad buu noo quseeyaa arrin muhiim oo Soomaaliya quseeyo weeyaan hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee UNHCR ayaa kamid ah hay'adaha ku dadaalaya sidii loo ilaalin lahaa xuquuqda arrimaha qaxootiga iyo sidii xal waara loogu heli lahaa dadka ka gudbaya xuduudaha wadamada geeska Afrika shirkan IGAD ee halkan ka socda waxaan ugu talagalnay inaan isugu keenno aqoon-yahanka dawladaha iyo saaxiibada IGAD si looga wada xaajoodo barakaca iyo qaxootinimada iyadoo lagu dabaqayo heshiiska caalamiga ah ee xuquuqda qaxootiga Khadar Maxamuud Xareed qubanaha maanta Nairobi ciidamada ammaanka ee dalka Pakistan ayaa dilay maleeshiyo weerar ku qaaday gudahana u galay hotel ku yaala magaalo xeebeedka Qawadar ee dalkaasi Pakistan saraakiisha Pakistan ayaa sheegay in 3 nin oo xirnaa dharka militariga ay gudaha u galeen hotelka la yiraahdo Pearl Continental sabtidii shalay iyaga oo dilay 3 qof oo ilaalo ka ah hotelka qof shaqaale ka ah iyo askari ka tirsanaa ciidanka badda ee Pakistan koox lagu magacaabo ciidamada xureynta Balochistan ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarka hotelka waxaana ay sheegeen in ay bartilmaameedsadeen wax ay ku tilmaameen maalgashiga Shiinaha uu ka wado dalkaasi Pakistan gaar ahaan gobolka Balochistan ugu dambeyntiina wareegga lixaad ee doorashada guud ee dalka India ayaa waxa ay maanta ka socotaa magaalada New Delhi iyo magaalooyin ku yaalo dhinacyada waqooyiga iyo bariga ee dalkaasi India 10 milyan ayaa codadkooda ka dhiibtay saaka kuwaas oo kamid ah in ka badan 100 milyan oo codadkooda ka dhiibanaya waqooyiga iyo bariga India doorashadan ayaa waxa ay ku eg tahay 19ka bishan oo ku beegan xadda soo socota doorashada guud ee India oo soo bilaabatay 11kii bishii April ee aanu ka soo gudubnay ayaa loo saadaalinayaa inuu ku guuleysan doono xisbiga hadda talada haya ee Bharatiya Janata Party ee uu hogaamiyo ra'iisul wasaare Narendra Modi meelaha kale ee axadda maanta ah ka dhaceen doorashooyinka baarlamaaniga ee India waxaa kamid ah gobolka ku yaala dhinaca bari ee West Bengal halkaas oo wasiirada laga soo doorto ee Mamata Banerjee iyo xisbigeeda Trinamool Congress ay ku dadaalayaan in ay joojiyaan xisbiga ra'iisul wasaare Modi doorashooyinka baarlamaaniga Hindiya oo ay ka qayb galeen 100 milyan oo qof ayaa lagu wadaa in tirinteeda ay bilaabato 23ka bishan May haatanna waa wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha waxaa inoo soo diyaariyay wariyaheena gobolka Minnesota Maxamuud Mascade
horyaalka waddanka talyaaniga haddii aan ku bilaabana kooxaha kubadda cagta ee Torino iyo Sassuolo kulan xiiso badan oo labadan kooxood dhex maray ayaa 3-2 waxa ay guusha ku raacday kooxda kubadda cagta ee Torino. Waxaa xusid mudan ciyaaryahan Abrabia oo qaybtii hore ciyaartaasi kooxda Sassuolo gool u dhaliyay calaamada guduudan loo taagay kadib markii qaybtii hore ciyaarta uu 2 jaal qaatay walow kooxdiisu ay 1 gool ku hogaaminaysay markaa umaan ay suura gelin inay xajistaan guushooda oo waxaa laga daba keenay 3 gool. ciyaaryahan Belotti ayaana goolashaasi 2 ka mid ah u saxiixay kooxda kubadda cagta ee Torino oo u suura geliyay kooxdu in ay 3 gool iyo 2 ku badiso 3 dhibcoodna ay halkaasi ka qaadato xilli kooxda kubadda cagta ee Torino ay u xafiltamayso sidii horyaalka qaaradda Yurub ee Champions League xilli ciyaareedka dambe uga qayb gali lahayd kaalinta lixaad ay haatan kooxdu fadhisa iyadoo horyaalka waddankaasi 2 kulan ay ka harsan yihiin. habeenkii xalay ahayd goor dambe xilliga Afrikada barina waxaa kooxda kubadda cagta ee AC Milan kulan adag oo ay kula ciyaaraysay magaalada Florence waa kooxda kubadda cagta ee Fiorentina waxay ku soo badisay 1 gool iyo waxba oo dirqi ah oo kooxda kubadda cagta ee AC Milan ay halkaasi ku soo qaadatay. kooxda kubadda cagta ee AC Milan ayaa iyadu wali rajo kale in horyaalka qaaradda Yurub ee Champions League xilli ciyaareedka dambe soo baxdo walow ay kaalinta shanaad ku jirto haddana 1 dhibic oo kaliya waxaa ka sarreysa kooxda kubadda cagta isku magaalada ka dhisan yihiin ee Inter. Atlantana kaalinta saddexaad ay haatan ka gashay Inter Milan oo iyadu waxa ay Inter Milan ka sarreysaa 2 dhibic oo 65 dhibcood ayay leedahay. haddaba la arki doone horyaalku markuu soo gabagaboobo kooxdii kaalinta afraad ku dhamaysatay ee suura gelisa inay ciyaaraha kama dambaysta ah ee qaaradda Yurub ee Champions League xilli ciyaareedka dambe ay u soo gudubto. waddanka Ingiriiska waxaa goor dhow la soo gabagabayn doonaa oo haatan ka bilowday maalintii ugu dambeysay horyaalka waddankaasi Ingiriiska iyadoo kulamada kooxaha kubadda cagta ee Manchester City iyo Brighton Hove Albion iyo Liverpool iyo kooxda kale ee Wolverhampton Wanderers ay taageerayaasha kubadda cagta ee dunidu si weyn isha ugu hayaan iyadoo marka ciyaartu ay soo gabagabowdo labada kooxood ee Manchester City iyo Liverpool midkood loo calaamo saari doono in uu yahay horyaalka waddanka Ingiriiska xilli ciyaareedka 2018-2019. kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa horyaalka waddankaasi ku guuleysato waxa ugu dambeysay sanadkii 1990 iyo sidii magaca looga bedelay horyaalkan oo lagu bixiyay EPL-na wali kuma aanay guuleysan. kooxda kubadda cagta ee Manchester City horyaalkan haatan lagu loolamayo ay difaacanayso oo haddii macallin Guardiola uu ku guuleysto caawa ay noqon doonto markiisii labaad oo xiriir ah ee horyaalka waddanka Ingiriiska uu ku guuleysto. xubinta ciyaaruhu daawadayaal waa naga intaa tan kulan dambe waa mascado idila sida iyo nabadgelyo. intaana daawadayaal waxaa inoogaga dhan barnaamijkeenii qubanaha maanta tan iyo kulan dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo Ramadaan Kariim.